wararka saaka naga soo gaaraya caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garowe ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta xarunta baarlamaanka kadib israsaasaynta xalay ku dhexmartay iyaga iyo ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka. Ciidamada Puntland ayaa xaruntaasi kala wareegay ciidan u daacad ah gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo gacanta ku hayay xaruntaasi. ciidamada gudoomiyaha baarlamaanka oo xaruntaasi gacanta ku hayay ayaa iskaga baxay gabi ahaanba qasriga iyagoo ay u suurad gashay ciidanka Puntland inay la wareegaan xaruntaasi. Xiisad khilaafeed oo u dhaxaysa ayaa ka aloosan maamul goboleedka Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo ah gudoomiyaha baarlamaanka. Israsaasayntii xalay ku dhexmartay ciidamada Puntland qasriga baarlamaanka ayaa waxaa ku dhintay ilaa 3 qof, 2 askari iyo nin ganacsade ah oo lagu magacaabi jiray Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne. Ismada iyo odayaasha dhaqanka Puntland ayaa waxay doonayaan amaba ku jiraan sidii xaalad caadi ah ugu soo celin lahaayeen deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garowe. Shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada Garowe ayaa waxa aad u hadalhaya bulshada ku sugan Puntland oo dhan gaar ahaan kuwa Garowe.